أضفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا أضفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا الله سبحانه وتعالى ما دام صفاتك أي تلمامها وليهي وإن أبوري وإن ليهي وإن معموله ونعمي وناك استوي نسيي وحق إنه يقول لي يا رب سبحانه وتعالى إنه ينقنا الدوام الدبا وإنه حقيقينه ujeedada ilaahay inoo abuuray saaxiib wanaagsan dooro waa dantaada saaxiibka xunna iska ilaali oo ka fogow qofka muuminka ahi hadduu taagan yahay hadduu fadhiyo hadduu jiifo hadduu soconayo hadduu arrin adduunye ku jiro hadduu masaajidka fadhiyo hadduu goobtiisa ganacsi dhex fadhiyo waa mid aan marnaba ilaahay subxaana wa tacaala aan ilaabin qofka masaajid ilaahay daraaddii u dhisa ikhlaasan magac ku dooni maayo maamuusna kuma rabo manfaca adduunyana hadalkeeda baddaa ilaahay buu wax kaga doonayaa ilaahay wuxuu ku abaalmariyay inuu guri jannada uga dhiso ina alinsaana lafii khusr ila aladiina aamanuu wacamiluu الصaalixaat watawaasaw biاlxaqi watawaasaw biالsabr afartaasi arrimood waktigu waa qaali oo anigaa ku dhaartaye ha ku dhammaada weeyaan macnaheedu iimaan camal saalixa sabir aad ku sabirto wanaagga xumaanta aad ka sabirto qadarada ilaahay u xanuujiyana aad u sabirto iyo wanaagga ilaahay subxaana wa tacaala adiga uu kugu galladaystay inaad dadka kalena u gudbiso bakhayl aanad ku noqon abu hurayra radia allahu canhu wuxuu soo maray dadkii oo suuqa jooga oo ku mashquulsan howlihii adduunyo beec iyo shiraa inay wax iibiyaan iyo wax kala iibsadaan wuxuu ku yihi ayuha annaas antum haa huna wa miiraahu nabiyikum yuqsamu fi lmasjid dadoo halkanaad fadhidaan dhaxalkii nebigiinana waxaa lagu qaybinayaa masaajidka dad baa masaajidka yimi iyagoo u malaynayey xoolo uu rasuulku calayhi salaatu wasalaam ka tegay masaajidka in lagu qaybsanayo waxay arkeen masaajidkii oo qur-aan lagu akhrinayo qur-aan lagu baranayo masaajidkii oo xalaqaad cilmi ay ka ogan yihiin oo ay ka socdaan waxay ku soo noqdeen abu hurayra radia allahu canhu waxay dhahan yaa abaa hurayra inamaa taquul abu hurayra waxaad sheegaysay mee masaajidkii kumaanaan arag wax xoolaa lagu qaybinayo wakula insaanin alzamnaa طaa'irahu fii cunuqihi ilaahay baa wuxuu yidhi qof walba waxaanu qoorta u sudhnay camalkiisa waxaanan u soo saari doonaa maalinta qiyaamana soo hordhigi doonaa isagoo ah qoraal uu akhriyo iqra' kitaabaka kafaa binafsika alyowma calayka xasiiba waxaa la odhan doonaa akhri qoraalladii lagaa sameeyey naftaadaa maanta kuugu filan عدك حسابي أديكو قرنقص أضفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا أضفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلهي بقى سبحانه وتعالى أمدن كشرفي إنه أصاد ديري رسوشي أنبياء كيو فضل قبضنا وندن بيه دمان تودبا وكختمي ونبينا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم ونعمه آدي آدوين إلهي بقى إنك صاري مقديدا نوعيدا كالدوان إنه نصاري حق إفتينك إيا نورك إنه قرنسيي راعتانك إيا الرومين تنبي محمد عليه الصلاة والسلام waxaa danta inoo ah adduuniya aakhiraba nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ilaahay waxa uu doortay ummaddan qayb ka mida
ورسولك عليه الصلاة والسلام دادك يهرية راعي رميئها قرب استاقية وقرقاري أها كوي رسولك عليه الصلاة والسلام لن ولاءها كواس وحل هذا الصحابة رضوان الله عليهم صحابيقو وقف كستوني محمد عليه الصلاة والسلام لكل مي دادي سوينتي دوني سبها الله كاتمركو لكل مي isagoo محمد عليه الصلاة والسلام rumaysan iimaankaasi uu nebi maxamed kula kulmayna ku geeriyooday oo ilaahay subxaanahu wa tacaala kula kulmay arrinta noocaasi waa sharaf aad iyo aad u weyn inuu qofku nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam adduunyada dusheeda uu kula kulmay waana arrin qof kastoo iimaan lihi uu jeclaysanayo inuu heli lahaa aad iyo aad uu u qiimaynayo ilaahay baa dadka qaarkood arrinta noocaasiya u doortay rabbi baa subxaanahu wa tacaala ku sharfay qaybtaasi saxaabada la yidhaahdo ee ummadda nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ka mid ahaa waa qayb ilaahay subxaana wa tacaala agtiisa qadar gooniye ku leh ilaahay subxaana wa tacaala si gooniya uu u maamuusay darajana ilaahay uu dheeraysiiyey ummadda inteeda kale ilaahayna subxaana wa tacaala u yeelay xuquuq gaara oo ummadda inteeda kale iyagu ay ku leeyihiin waxaana taas sababay inay iimaanka u dheereeyeen wadada kale ay uga horeeyeen والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار إلهي بات المامي كوي إيمانك أهرية دادك كلا أهرية وقديرية المهاجرين يا أنصار بالله إلهي نرالك النقضي سبحانه وتعالى وح أي رالك النقضان وأبال مريننا إلهي هرتين كل مدونان يوم القيامة إلهي نرالك النقض وحصاب نقضي فعلم ما في قلوبهم إلهي وحسين بو أوغا وحا قلوب تودا كتشرة إيمانكو إنو كدب يهي إيمان قلوب تودا وعامري بو إلهي أوغا إلهي وحو أركايي أو مقلي وحا كسوفو لي وحو ناكسن وإلهي سبحانه وتعالى رالك قلناي تاسوحي صاب نقطي إنو إلهي رالك النقضي وندياريي waxay raalli ku noqdaan oo adduunyada dusheeda iyagoo jooga ayaa janno loogu bushaareeyey laa yastawi minkum man anfaqa min qabli alfatxi wa qaatal ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu yidhi ma sinna kuwa iimaanka la yimi ee dagaalamay ee xoolahoodii bixiyey sulxulxudaybiya hortii iyo kuwa arrintaasi sameeyey bacda sulxulxudaybiya dabadii fatxiga halka sulxulxudaybiya looga jeedaa وكلنا وعد الله الحسنى أبو إلهي رينتا دبدت دمان إلهي وحو أبلن قاضي صحابة كوي سلح الحديبية كهر جهادي حولو دبحيي يكوي انتا دبدت جهادي حولو دبحيي إلهي وحو أبلن قاضي دمان تودبع الجنة كان لوغو بشاريي الدوية دوشيدة يقو أمرائي إلهي بس سبحانه وتعالى تلمامي صفات كوناكسنة أي لهايين وأماني وتزكية ديي وها رب سبحانه وتعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون إلهي وحو سقارة وأمان مهاجرين وصحابة قيبتوا فضل قبضنين وكوي دلكودي حولهودي يددكودي بإلهي درادي وقتقي إلا بحصدي الدين تودا يقو إلى عشان إيمانك هي نعمة إلهي سبحانه وتعالى وسيه ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu yidhi fuqaradii muhaajiriinta ahaa ee laga saaray guryahooda iyo xoolahooda maxay uga tageen guryahoodii iyo xoolahooda waxa ay doonayeen ilaahay raalli ahaanshihiisa iyo fadliga ilaahay oo jannadu ay u weynta wayansuruuna allaha warasuulah waxay uga tageen dhulkoodii xoolahoodii iyo dadka ay jeclaayeenba si ay ugu nusreeyaan oo ugu hiiliyaan ilaahay subxaana wa tacaala iyo rasuulka calayhi salaatu wasalaam waayo waxay u hureen uhiilinta diinta kuruqaadisteeda garab istaagga nebiga calayhi salaatu wasalaam shay kasta oo qaali ah waxay u hureen naftoodii oo ilaahay daraaddii subxaana wa tacaala ay u bixiyeen waxay u hureen xoolahoodii waxay u hureen wakhtigoodii waxay u hureen waxyaabo fara badan oo naftoodu ay jeclayd inay ilaahay subxana wa tacaala daraaddii uga tegeen caalam dhan ayay waajiheen caalamkaasi oo hubkiisa leh oo ciidamadiisa leh oo dhaqaalihiisa leh oo iclaamkiisa iyo warbaahintiisa leh
waxaanay u dhabar adeegeen dhibaato kasta oo xaggiisa kaga timi ilaahay daraaddii ayay ugu sabreen. ilaahay baa tilmaamay waxaa arrintaa kalifay inay tahay inuu iimaanku ka dhab ahaa. ulaa'ika hum saadiquun, kuwaas waa muhaajiriintii. saxaabada waxaa ka mid ahaa qayb kale oo la yidhaahdo al-ansaar. waxaa magacaa loogu bixiyey waa qoladii lagu soo qaxay ee nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam garab istaagay, guryahoodii ku soo dhoweeyey, ka difaacay nebi maxamed dhib kasta iyo weerar kasta oo lagu soo qaado. waaladiina tabawa'u addaara waaliimaana min qablihim yuxibuuna man haajara ilayhim. ilaahay wuxuu leeyahay kuwii iyaga hortood madiine sii deganaa, iimaankana ilaahay subxaana wa tacaala uu ku arsaaqay, waxa ay jecel yihiin ay soo dhoweynayaan muslimiinta kale ee ku soo qaxda. naf qaybsi bay lahaayeen, waxa ay u soo bandhigeen wax walba inay la qaybsadaan ilaa dumarka laga soo gaadho. may ahayn dad waddan isku qabyaaladeeya ama qolo isku qabyaaladeeya. iimaanka walaaleeyey ayaa wax walba kala qaalisanaa. ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu tilmaamay waxay ilaahay daraaddii ay u bixinayaan inaanay marnaba naftoodu aanay dhibsanahayn, ee naftooda oo ku faraxsan ay bixinayeen. ilaahay baa bakhayltinimada ka ilaaliyey. saasuu ilaahay u ammaanay saxaabada rasuulkiisa. waxay ahaayeen ummadda nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam dhuuxeedii bay ahaayeen iyo labeenteedii. waxay ahaayeen ummaddan qaybtii u khayrka badnayd xagga iimaanka iyo xagga cilmiga iyo xagga camalka iyo dhinac kasta oo laga eegaba. qaala nabiyu calayhi salaatu wasalaam khayru nnaasi qarnii, dadka waxa u khayr badan kuwa qarnigayga jooga. kuwa qarnigiisa jooga waayo waa saxaabadii rasuulka. nebi maxamed baa yidhi akrimuu asxaabii fa inahum khiyaarukum, rawaahu axmed. asxaabtayda si fiican ula dhaqma, ammaana, maamuusa, weyneeya oo ixtiraama oo qadariya, waayo ummaddayda haddaad tihiin iyaga ayaa idinku khayr badan. khayr kasta way nooga horreeyeen. hum aladiina xamaluu hada addiin, iyaga ayaa kuwii diintan xambaaray ee qur-aanka nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ka bartay ee ka qaybay. xadiidkan iyaga ayaa ka soo wariyey. cilmi kastoo maanta aynu hayno iyo khayr kastoo aynu samayno qayb bay ku leeyihiin. ajarka aynu ka helno mid leegna way ka helayaan. waayo rasuulka yidhi addaallu cala alkhayri ka faacilihi, qofka dadka khayrka tusiyaa ka sameeyey ayuu la mid yahay. wax allaale waxa khayr iyo wanaag qof kastoo muslimi uu sameeyo iyagaa saxaabadu ridwaanullaahi calayhim inoo soo wariyey. waa cilmigii iyaga laga dhaxlay. saxaabatu rasuulillaah ridwaanullaahi calayhim, rag iyo dumarba, yar yar iyo waaweynba, aniga iyo adigaba xaq weyn bay nagu leeyihiin. xaqaas waxaa ka mida marka koowaad waa inaynu jeclaanno. ilaahay daraaddii baynu jeclaanaynaa. iimaanka, alla ka cabsiga, khayrka iyo wanaagga, diintan waxay u galeen iyo waxay u gudeen. innaga lafteenna waxay noo qabteen oo diintan ay noo soo wariyeen ay noo soo gaadhsiiyeen. taasi ayaa qof kastoo muumina ku dhiirigelinaysa inuu jeclaado dadka kuwa uu ugu jecel yahay nebiyada dabadood inay noqdaan. waayo dadka waa kuwa u fadli badan nebiyadii rusushii ilaahay uu soo diray marka laga reebo. waxay nagala gudboon oo aniga iyo adigaba xaq ay noogu leeyihiin inaynu weynayno, aynu dejinno halka ilaahay subxaana wa tacaala uu dejiyey. ilaahay baa ammaanay, ammaan bay xaq inoogu leeyihiin. ilaahay baa qadarkooda iyo qiimahooda muujiyey. waxay xaq inoogu leeyihiin inaynu qadarkooda iyo qiimahooda aynu muujinno. waxa ay xaq inoogu leeyihiin saxaabada rasuulku ridwaanullaahi calayhim an nataradaa calayhim, inaynu ilaahay subxaana wa tacaala u weydiinno inuu ilaahay raalli u ka noqdo, oo aynu idhaahno radia allaahu canhum, ilaahay raalliha ka noqdo. saxaabi kasta oo lasoo hadal qaado inaynu idhaahno radia allaahu canhu, waayo sharafta saxaabinimada wax u dhigmaa haba yaraatee ma jiro. waa inaynu aaminno annahum fawqanaa fii kulli fadiilatin wa sharaf, inay naga sarreeyaan innaga fadli iyo sharaf kasta inay naga sarreeyaan. nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam inay iyagoo muuminiina la joogeen oo isa soo gaadheen ayaa camal kastoo aynu samayno ka khayr badan oo ka darajo sarreeya. wuxuu ihi cabdullaahi ibnu mascuud radia allaahu canhu, wakhti yaroo kooban oo midkooduu rasuulka la joogay ayaa ka darajo badan oo ka fadli badan 40 sannadood cibaadada midkiin waxa weeyaan uu sameeyey. sharafu suxba laa yusaawiha sharaf, sharafta saxaabinimada sharaf haba yaraatee u dhigantaa ma jirto. saxaabada rasuulka ridwaanullaahi calayhim wanaagyadoodii waa inaynu faafinno
oo ummadaha aynu gaadhsiino. waa inaynu iska ilaalino saxaabada rasuulka ridwaanullaahi calayhim haddii khalad uu ka dhacay qaarkoodba khalad iskuma waafiqi karaane inaynu khaladkaasi aynu sheegno. waayo sheegsheegista la sheegsheegaa waxay sabab u noqonaysaa quluubtu inay ka diddo oo ay nacdo. taasina maaha tii ilaahay uu inaga doonayey. ta ilaahay subxaana wa tacaala uu inaga doonayaa waa inaynu quluubta jeclaysiino oo aynu ku soo dhoweyno. waxaa nasiib darro ah in taariikhdii saxaabada waxyaabaha xaqa ay noogu leeyihiin inaynu baranno oo kutubta ku qoran oo ku dawinan oo culamaa ulislaam xil ay iska saareen ay si gooniya u qoreen oo saxaabi kastana taariikh nololeedkiisa si gaar ay uga hadleen in fara badan oo ka mida muslimiinta maanta da'yar iyo waayeelba inay jahli kaga sugan yihiin oo waxba aanay ka garanahayn, iyagoo laga yaabo aqoon xeel dheer inay u leeyihiin taariikhda iyo maalmihii ay soo mareen dadaan adduunyada waxba aan ku soo kordhin. hadday wax ku soo kordhiyeenna waxa ay soo kordhiyeen uu yahay adduunyana qiimaheeda waa la garanaya. waa nasiib darro in qof muslimi abubakar iyo cumar, cuthmaan iyo cali, abu hureyra iyo ibnu cabaas iyo saxaabada la midkaa taariikhdoodii, noloshoodii iyo axwaashoodii waxba aanu ka garanahayn oo islamarkaana u abtirinayo kuwo ka mida kuwa maanta kubadda ciyaara ama kuwa fanaaniinta ah ee waxa weeyaan heesa. waajib bay nagu tahay inaynu baranno taariikhdii saxaabada. taasi waxay sababaysaa inaynu jeclaanno oo quluubtu xaggooda ay u soo durugto. waxaa nasiib darro ah inta iskuullada loogu dhigo maanta in badan oo ka mida da'yarta muslimiinta ee taariikhdii saxaabada ku saabsani inay tahay in madow oo been fara badan lagu daray, waxna lagu siyaadiyey, waxna laga tuuray, wax fara badanna laga bedelay, inay tahay waxyaabo khalada oo qaarkood ka dhacay oo ay ahayd in lagu aaso badda ama lagu dhex qariyo badda xasanaadkooda iyo wanaagyadooda oo wanaagyadooda lagu ilaabo, inay tahay in ku saabsan khaladaadkaas weliba wax fara badan laga bedelay, wax fara badanna lagu daray, wax fara badan oo wanaagyadoodii ka mid iyo cudurdaaradoodiina laga jaray oo laga tegey. waxaa taariikhda da'yarteenna iskuullada loogu dhigo in fara badan oo dhulka islaamka ka mida uu ku saabsan yahay khilaafkii dhex maray saxaabada qaarkood oo saxaabada qaybta ka noqotayna culimmadu ay yidhahdaan 20 saxaabi may gaadhahayn. laakiin waxaa laynoogu sawiraa saxaabadu inay xukum isku qabsadeen. xukum iyo khilaafo marnaba iskumay qabsan, khilaafkuna taa kumuu saabsanayn. waxaa laynoogu sawiraa in saxaabadii oo dhami ay islaayeen. hadda waa dagaalada culimmadu ay yidhaahdeen tirada ka qayb gashay ee saxaabadayd waxaan duuna 20 kuwa ka yar ayay ahaayeen. taariikhda madow waa in la laabo oo taariikhda cad ee quruxda badan ee saxaabada rasuulku ridwaanullaahi calayhim ay lahaayeen waa in da'yarteenna la baro si ay quluubta u jeclaato, quluubta ugu weynaadaan, si saxaabada rasuulka ridwaanullaahi calayhim loo ixtiraamo. waxaa nasiib darro ah dad islaamka ku abtirsanayaa inay diin ka dhigteen inay nacdalaan saxaabadii rasuulka, weliba kuwa ugu qiimaha badnaa abubakar iyo cumar iyo cuthmaan iyo abu hureyre iyo abu muusa alashcari iyo saxaabada la midkaa radia allaahu canhum ajmaciin, kuwii jannada loogu bushaariyey ilaahay raalli uu ka noqday inay warkaa ilaahay beeniyaan iyo bishaarooyinka rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo iyagu ay nacdalaan bal ay gaalaysiiyaan oo ay yidhaahdaan diintaba may haysan ama nebiga calayhi salaatu wasalaam dabadi ayay gaaloobeen. arrinta noocaasana ay u arkaan inay tahay mid arkaanta iyo tiirarka diintooda ka mid a. kuwaasi waxa waajib inagu ah mowqif adag inaynu ka istaagno, berina aynu ka noqonno oo aynu ogaano inaynaan isku diin ahayn. kuwa diintoodu ay tahay in la caayo saxaabadii rasuulka, in la gaalaysiiyo. dhab ahaanna kuwaasi waxa ay ku socdaan waa qur'aanka iyo xadiidka rasuulka calayhi salaatu wasalaam. waayo qur'aanku waa xaq, xadiidka nebiguna calayhi salaatu wasalaam waa xaq. cidda inoo soo warisayna ee arrintaa markhaati inooga ahna waa lagu kalsoonaan karo waa saxaabada rasuulka ridwaanullaahi calayhim. marka qofka saxaabadii weeraraya waa qof doonaya qur'aankii iyo xadiidkii meesha inuu ka saaro, waayo warkii ay soo wariyeen wax jiro oo la rumaysto oo la qaato noqon maayo. haddii iyagii la aflagaadeeyo la yidhaahdo way gaaloobeen, munaafiqiin bay ahaayeen, beenaalayaal bay ahaayeen, sharkooda ayaa waxa weeyaan badnaa. kuwa noocaasina shakilaan muslimiin maaha, kuwa la saxaabadii oo dhami gaalay ahaayeen. kuwa abubakar iyo cumar nacdalaya ee caayaya qofka muslimka ahina kuwaasi inuu soo dhowaysto amabase waxa weeyaan marnaba inuu xigtaysto ma aha.
saxaabada rasuulku madaxa ayay inoo saaran yihiin. waxa waajib inagu ah cid walba inaynu ka jeclaano oo ay nagala qiimo badnaadaan. waxa waajib inagu ah cilmiga diinta inaynu iyaga u daba fadhiisanno, qur-aanka iyo xadiidka siday u fasireen cid iyaga u aqoon badani ma jirtee inaynu u fasiranno, inaynu iyaga ku raacno qaabka loogu dhaqmayo aayaadka qur-aanka ah iyo axaadiida rasuulka calayhi salaatu wasalaam. ilaahay baa ammaanay saxaabada rasuulka kuwa wanaag ku raaca ee iyaga ka dambeeyey, waladiina tabacuuhum biixsaan. qof waloo muslimiba waa inuu naftiisa sifadaa u yeelo, oo haddii isaga sharaftii saxaabinimada iyo derajadaasi ay seegtay oo ilaahay uu qadaray inaan nebi maxamediisa soo gaadhin, sharafta labaad oo ah saxaabada in la raaco oo iyaga lagu daydaa, qofka muslimka waa inaanay seegin, taasoo ilaahay uu tilmaamay ilaahay subxaana wa tacaala raalli inuu kaga noqonayo. ilaahay baynu ugu dhowaanaynaa jacaylka saxaabada rasuulka, ilaahay baynu subxaana wa tacaala ku weyneynaynaa weyneyntooda. nebi maxamed jacaylka kalgacaylka aynu haynaynu ku muujinaynaa jacaylka aynu jecel lahay ardaydiisii iyo kuwii uu rabeeyey nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam. ilaahayna waxaynu weydiisanaynaa arrintaasi inuu inagu nooleeyo oo rabbi subxaana wa tacaala uu inagu dilo. wajazaakum allahu khayra. wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu. أضفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا أضفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره